ganacsatada maalgashiga ku sameynaysa goobaha dalxiiska ee Baydhabo ayaa sii kordhaya. Baydhabo ayaa yeelatay 2 beer oo ah meel dalxiiska iyo damaashaadka loo tago. Dumar iyo caruur ayaa si aan qiyaas lahayn ugu dalxiisa 2 beerood ee xilligan laga hirgeliyay magaalada Baydhabo. Caruurta iyo dadka kale ee waaweyn ee taga halkan waxay ka helayaan adeegyo iyo agabyo ay ku madadaalaan xilliga waqtiga ay qaadanayaan. ganacsatada ayaa xilligan waxa ku dhiirigeliyay in deegaanadoodu ay maal gashtaan. Nabadda iyo horumarka ganacsi ee xilligan ka hana qaaday deegaanada Koonfur Galbeed iyaga oo daboolay baahi weyn oo ka jirtay Baydhabo. ma imbahajarna hata markiyo magaaladan security-gana hata ku qabsadan ma imbahajarna magaalooyinka kala sida magaalada Muqdisho beero ka yaalan iyo dalxiisanka bahajaran haska sabri jireen hadda alxamdulillah magaaladii ya ku hirgeliyay ilaahay yani suurta geli hadii uu inaan dhalinyarada walibaan eedan ka faraxsana in goobo nooc amal lagu hirgeli magaalada Baydhabo hadii dhalinyarada inaan eedan ka faraxsana in goobo nooc amal lagu hirgeli magaalada. dhalinyarada ayaa halkan ku qaadanaya waqti qurux badan waana goob nasashada iyo dalxiiska ku wanaagsan. meebeedan kuma hadnaqaanay ganacsatada oo deegaanka oo arageen baahida ku jirtay deegaankii walbadan oo meel badan lanka bahajariya ka helahayn deegaankan gudaatiis eedan ka faraxsana meelaray mashruuc baaxad weyn oo nin ku fuliyo magaalada Dhatiis meeban dabaal deegaan ee quruxdan meel kasta oo Baydhabo ka yaala inuu meel raayseena dalxiis an ka koyn go'oon amal أول كهر ميل رايسين مجرنا ميلول دالحيسو أما ميل رايسين قدام عشرة مجرة إن هذا ويبوا حرونتون حرون عصب وما شاء الله إد بحد أن لا أو ميل رايس ميل بدن على دالحيسو يالك ددوينك ويبوا ما شاء الله إذا أنك فرح سنة إن جيك ويبوا هاي حرونتون كويني tani waxay hoos u dhigaysaa in bulshada deegaanka dalxiis u aadaan gobolada kale ee dalka waxaana kor u qaadaysaa in dhalinyarada iska dhaafaan tahriibta oo dalkooda hooyo ay ku qancaan. Baydhabo soo ngaragahayna gaar ahaan magaalada uu roogna meeba eedan ka qanacnay wala ku dareera hawbada fiirdoon wal dibid lahan ku shaqeeyay meel walaan dalkayl ka shaqeeyo dalkan in la qabadi walaanyogaan oo maqan meeban ka digay intii oo banaanka la ku shaqeeyay Baydhabo bilacdeen ku qeyb qaadahayna meeba faraan intii hanagadan daljoonka dalxiisan waana dhaqaale galadan istaasiidiyaan ka digay waliba airline dhalinyarada intii oo nahay tahriib isku dhaafan wadan joon aysan fayl isku roogan quruxda badan hadda waliba ku mid ah maalmooyinka jamaacada ama xilliyada fursad lilay in lambaha in lankooy meelo oo kale oo magaalada Baydhabo eed lahan ka baday baryaalkun waliba ina dad eedan ka faraxsan hadii ku mid ah dhalinyarada ganacsatada iyo meel raaysan barnaamijkan ka dhiiridan sameeyay eedeedan ka mahadsanin in meel raas magaalada goobo noocan amal la ku sameeyay meel raas dadkan dalxiis tagayaan way baa eedeeda meel raas miimidan la tag magaalada Baydhabo oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolada Koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan waxa ka socda horumar ganacsi iyo mid amni waxaana sii kordhaya ganacsatada hantidooda ku maalgelinaya deegaanka. Siraaji Shaysa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.